wafdi ka socda Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka tamarta iyo toddobaadka shidaalka Afrika. Wariyayna Saada Sayid Axmed ayaa idin faahfaahinaysa. Shirka toddobaadka Afrika oo looga hadlayo batroolka iyo macdanta ayaa ka furmay dalka Koonfur Afrika, waxaana Soomaaliya uga qayb galaya wasiirka batroolka iyo wafdigu hogaaminayo wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ka warbixiyay shirka tamarta iyo toddobaadka shidaalka Afrika iyo waxyaabaha looga hadlayo. shirka aan maanta u joogno Cape Town khaasatan wadanka South Africa khaasatan magaalada Cape Town wuxuu ku saabsan yahay waxay ahayd shir ay isugu yimideen wasiirada tamarta iyo batroolka wadamada Afrika ilaa iyo 40 wasiir oo ka socda qaaradda Afrika ayaa halkan ku kulansan. waxaa kaloo ayagana ku kulansan ilaa 400 oo qofood oo ah madaxda shirkadaha batroolka iyo gaaska soo saaro. annaga wuxuu leeyahay ahmiyad gaar ah. number 1 marka koobaad waxaa looga hadlayaa sida Afrika ay isugu filaan karto marka la fiiriyo dhanka energy-ga marka la fiiriyo iyo sidoo kaleeto sidii aan u soo jiidan lahayn dad maal gashto resourceska wadankeena uu leeyahay oo isugu jira oil iyo gas iyo mineral intaba isugu jira sidii aan u soo jiidan lahayn ayaa labadaas ahmiyadood ayuu leeyahay annaga.